marka su'aashu waxay tahay mucaaradka xaalkooda siduu noqon doonaa. Mucaaradka in way xaalkooda la mid un baa u banaan sidaan filay hadda. Midda koowaad waxay tahay inay tartiibtooda ay gaabsadaan, guryahooda ay galaan, facebookyada wax ku soo qoraan. Midda kale inay isku dayaan inay horumarsi waxay sameeyaan, laakiin taasi macquul maaha. ugu dambeyn waa sidii aan filaynay, waxayna noqotay inuu madaxweynaha sanad kale uu helo. taasoo macnaheedu ay tahay in la iskugu soo laaban doono sanadka dambe iyo bisha May xilligan oo kale. inta ka horeyso wadanka waxay ka dhigan tahay marka hore u sii socon doona madaxweynihii jiray awilina sii jiri doono. marka su'aashu waxay tahay mucaaradka xaalkooda siduu noqon doonaa. mucaaradka in way xaalkooda la mid un baa u banaan sidaan filay hadda. midda koowaad waxay tahay inay tartiibtooda ay gaabsadaan, guryahooda ay galaan, facebookyada wax ku soo qoraan. midda kale inay isku dayaan inay horumarsi waxay sameeyaan, laakiin taasi macquul maaha. maxaa yeelay wadanka laba dowladood kama wada talin karto. waxaan macquul ah markaas in gacanta la iskula tago, laakiin waxaan rajaynayaa inaysan dhicin. markii la eego hay'adaha caalamiga sida qaramada midoobay oo kale, African Union, East IGAD, dhammaantooda in somehow waxaad u moodaa inaysan u janjeerin dhinaca mucaaradka, sidoo kalena ay dhexdhexaad ka muujiyeen markii la joogo dhinaca dowladda. taasoo macnaheedu ay tahay madaxweyne hawshaada hore u sii wado. wadanka waxaa loo baahan yahay inuu qof walba uu tagaa, waxaa la yidhaahdaa qof iyo cod iyo sanadka dambe. marka anyway maxaa la yidhahdaa hay-adaha caalamiga ama kuwa ay yidhaahdee qaramada midoobay waxay aad u xiiseynaysaa inuu wadankan uu helo nidaamka la yidhaahdo one man one vote oo codeynta qof iyo shakhsi ah. taasoo si practical ah dowladda u tusisay markii lagu jiray sharkii ka dhacay xalane oo sheegtay dowladda inay qabatay 2 gobolna ay ka qabatay one man one vote. labadaas gobol ka mid ah uu yahay gobolada la dhihi jiray waa gobolada ugu qatarsan dhinaca amniga. nasiib wanaag lagu guuleystay 13 degmo ka mid ah gobolkaas in lagu qabtay waxaa la yidhaahdaa codbixintaas iyadoo wax dhibaato ah jirin, sidii loo baahnaa wax walba u dhaceen. marka taas dowladda lagu sii dhiirgeliyay Xasan Sheekh Maxamuud meeshaasna wuxuu ka helay dhibco siyaasadeed oo muhiim. laakiin qolada kale maxaa la yidhaahdaa siyaasiyiinta ayaga sinaba waxaa moodaa inaysan wax xal ah aysan keenin, ayagoo dhahayo bis waxaan u baahannahay inaysan doorashadan aysan noqon qof iyo cod, sidoo kalena maxaa la yidhaahdaa dib loogu laabto teendhada, taasoona xilligan ay noqonaynin mid macquul ah. mar uu madaxweynaha hadlaya wuxuu sheegay sidoo kale dastuurka oo diidan yihiin qolada siyaasiyiinta. uu yiri haddii ay tahay mid aan aniga qoray oo aan aniga tala ku darsaday, waxaa dhici lahayd in madaxweynaha laftirkiisaba lagu soo doorto qof iyo cod. laakiin dadkii markaas khubradii gacanta ku haysay dastuurka way iga diideen, waxay u leeyihiin madaxweyne taasi macquul maaha, waa ka aqbalay. marka dhowr qodob wuxuu sheegay madaxweynaha sidaas oo kale ah uu ku darsaday, laakiin ay diideen in loo ansixiyo oo dastuurkaas lagu daro, waanan ka aqbalay sida ayaga ay rabeen wadankana u wanaagsan ay maxay yiraahdaa dastuurkaas loo qoray. marka dastuur khubro Soomaaliyeed diyaariyeen oo laga fikiray baarlamaanka Soomaaliyeed la marsiiyay cod aqlabiyad la helay, waa maxay sababta loo diiday laakiin loo ogol yahay in lagu shaqeeyo dastuur 2012 la dhaqan galiyay hal gobol oo wadanka ka mid ah saxiix uu ku leeyahay, inta kale oo dhan ajaanib iyo wadamada dariska dad ay soo direen sirdoone ay saxiix ku leeyihiin oo aanan jirin, oo aanan ahayn dastuur Soomaaliyeed, laakiin uu yahay dastuur lagu leeyahay laguna talagalay in adiga lagu qaso. laakiin dastuurkan oo aanan jirin hal saxiix oo ku leeyahay qof ajnabi ah oo aanan ahayn siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo maxay yiraahdaa aqoon-yahanada Soomaaliyeed bis dadka saxiix ku leh. taas macnaheedu ay tahay waxa dajiyay maskaxda keentay dadka saxiixay
dadka baarlamaanka marsiiyey dhammaan inay yihiin dad Soomaali taasi waa la diiday laakiin waxaa la rabaa in la yiraahdo waxaan rabnaa waan diyaar u nahay inaan ku shaqeyno mid kale waa ajnabi saxiixday ajnabi soo hindisay wax Soomaaliyeed aan ku jirin markii la eego boqolleyda marka in somehow waxa macquul ah xaq inuu guuleysanayo marka anyway waa hal sano kale iyo 2027 macnaheedu waxay tahay waa inuu sanadka dambe in dib la isku soo boorka iskaga soo jafaa sidoo waaragtaaday dastuurkan in lagu shaqeeyo in dastuurkii hore la soo celiyo adigoo biska eeganayo dantaada laakiin aad u fiirinaynin danta waddanka sidoo kale waxay tahay dastuurkan waxyaabaha dhibaatada ay ku hayso dadka siyaasiyiinta waxay tahay dastuurkan wuxuu xanibi doonaa siyaasiyiin badan oo hadda ugu afdheer inta ugu badan dhibaatooyinka badan dhinaca media dawladda ka dhibaateeyo yacni inta badan waxay haystaan baasaboor dibadda dastuurkan hadda cusubna wuxuu dhigaa baasaboor dibadda qof haysta inuusan u tartami karin madaxweynaha waddanka ra'iisul wasaaraha waddanka iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee waddanka saddexda xil ugu waaweyn iyo sidoo kale qofka hadduu xaaskiisa ay tahay ajnabi sidoo kalena inuusan u tartami doonin saddexdaas waxay leedahay jago taasoo ku tusayso inay caqabad badan ka hor imaan doonto oo ay tahay qoladaas kale ee siyaasiyiinta marka si ay uga hortagaan waxay ku qasban yihiin inay dhahaan anaga waa qaadacnay oo aan diyaar uma lihin sidoo aragtaa fikirkaaga commentiga